الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أحبتي في الله اليوم يوم عظيم اليوم يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون ما أنت ومال وين ومالك نبي موسى لبدباديي نبي الله موسى عليه السلام لبدباديي يقرد رعسنين lana halaagay fircawn iyo wixii la jiray ilaahay quraanka markuu ka hadlayay bishan aan ku jirnay ee muharrama iyo bilaha la midka ah ee la ajar maaragtay la fadliga ah ilaahay wuxuu yiri inna ciddata ash-shuhuri 'inda allahi 12 shahra ilaahay agtiisa xaga tirada markii la fiiriyo bilaha waa 12 fi kitaabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard waxaana la abuuray maalinkii la abuuray cirka iyo dhulka minhaa 4 xurum 4 xurmale ayaa ku jirtuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala daalika addiinu alqayim diin toosan waa taas walaa tadlimuu fiihinna anfusakum naftiina ha dulminina ayuu leeyahy ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shirki ha ku dulminina iyo macaasi aad samaydaan iyo dunuub laydin qoro naftiina ha dulminina aayadda 36 ee suuratu tawba ayaa ka raadsan kartaa وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر ورنا النبي وحليه السنة 12 شهرا سنة والله توان بلود منها 4 حرم 4 حرم لا يا كجرتا 3 متواليات سدح ويحريران ذو القعدة وذو الحجة والمحرم سدحدا ويسكو حريران وذو القعدة يذو الحجة يا المحرم وأن كجرنا بدا فراد وحوايا ورجب مضر الذي بين جمادا والشعبان رجب كرير مضر لو آني ودحيس لبدا جماد الأول جماد الثاني وحي ودحيسها شعبان بخاري يا حديث كاسوريي مالي كان ومال آدي أقيم بدن بشان محرم لليهي سيدا يفضل بدنته النبي كهالي عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة ورنايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير أفضل الصيام بعد رمضان ملكي لغا سو تغسون وحا أفضل بدن شهر الله المحرم بش إلهي محرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة واجب كمركي لغا سو تغنا وحا أفضل بدن صلاة أهان صلاة الليل كايا أفضل بدن سيدا درتيد وحا ليري بلاهان أفركا دغالكا يو دم دروب توالا حاران تنمي حتى إن جهاد لقلو أيا لحاران تنمي دروب تنوي بكسي أولي سنتهي سيدا درتيد waxaa la yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda aad iyo aad ayuu ugu raxmaday oo ugu naxariistay waayo wuxuu yidhi ibnu rajab man saama min dilxija bisha dilxija ninkii soomo oo waa carafo maalinka carafo ninka soomo wa saama min almuxarami bisha muxaramna soomo waa caashuura ayadana فقد ختم السنة سنة وحكو ختمي بالطاعة وافتتحها بالطاعة طاعنا وكفر فرتي فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة وعلى رجينا يا إلهي لقى رجينا يا سنة كاسو دان قفكا مسلم كإن لو قره طاعة إن لو قره والنبي عليه الصلاة والسلام أهامد كدداله soonka maalinkan xataa saxaabadu uu ku dabageli jiray oo wuxuu samayn jiray dadka uu weydiin jiray war ma soonteen war yaa sooman war yay ka tagtay maanta soonkii uu ka fakaday ayuu weydiin jiray arsala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga wuxuu diraayey qolo ayuu diraayey nebiga calayhi salaatu wassalaam qadaata cashuuraa ilaa qura alansaar reer ansaar meelihii deganaayeen ayuu u diraayey markaasuu wuxuu lahaa man asbaxa mufdiran falyutimma baqiyata yowmi war ninkii afuray maanta
inta ka dambaysana ha iska af haysto oo yuuna wax cunin waman asbaxa saa'iman ninkii soomanna falyasum soonka ha dhammaystirto markaasaa caaisha waxay leedahay radia allaahu canha wa ardaaha fa kunnaa nasuumu waan soomi jirnay oo wa nasuumu sibyaanana carruurteennana waan soomin jirnay eraygaa bal fiiri maanta muslimiinta nool carruurtooda meel dhig ayaga ayaa lagu haystaa soonkii sunnaha ahaa inay ka faa'iidaystaan saxaabiyaddanna waxay leedahay waxaa waaye waa rabiica bintu mucawad waaye saxaabiyadda maahan caaisho waxay tidhi fa kunnaa nasuumu annaga waa soomi jirnay bacd wa nasuumu sibyaanana carruurtana waa soomin jirnay wanajcalu lahum allucba min alcihn waxay ku ciyaaraan oo ashyaada maaragtaaye malaacibtaana waa u samayn jirnay fa idaa bakaa axaduhum carruurta mid ka mid a markuu ooyo oo uu gaajoodo acdaynaahu daak ciyaar wuxuu ku ciyaaraan siin jirnay xataa yakuuna cinda alifdaar ilaa wakhtiga afurka laga gaaro allaahu akbar afurka ilaa laga gaaro ayaa sidaas yeeli jirnay oo carruurtaan soomin jirnay oo annagaa soomi jirnay oo nebigaa nagu dabageli jiray oo cidna mayna ka tegi jirinay leedaha soonkaas maalinka la soomayo ummaddu waxbaa isaga qaldan waxaa la soomayaa maalinka sabtida ah ee haddana soo qaabilaysa taariikhda miilaadiguna ay ku aadan tahay 29 taariikhda miilaadiga ay ku aadan tahay oo maalin sabti ah bishan agoosta ay tahay bisha 8aad 2020 xagga bisha hijriga markii la fiiriyana maalinka 10 ay ku aadan tahay oo sabtiga ah 1442 bisha muxarram marka waxaa la soomayaa maalinka sabtiga ah oo miilaadigana 29 uu yahay hijrigana uu 10 uu yahay ayaa la soomayaa waxaa fadli badan marka in la raacsiiyo maalinka ka horeeya oo jimcaha oo yowmu taasuuca la dhaho nebigana uu u goondiyey oo yidhi la in baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasuc haddaan soo gaaro sanadka soo socdo maalinkiisa 9aad ee bisha muxarram maalinkeeda 9aad taasuuca waa soomi lahaa ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maca alasaf ma gaarin nasiib xumo nebiga horteeda ayuu dhintay maalinka oo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa uu oofsaday falaxiqa bilrafiiqi alaclaa waxaa la isweyddiiyaa in badan maalinkan aan soomayno ee la leeyahay caashuura maxaa loo soomayaa limaada sabab maxaa fadli oo ku jiro maalinka la soomayo waa maalin weyn waa maalinkii la badbaadiyey nebi muuse calayhi salaam fircoonna la halaagay saa og tihiin nebi muuse calayhi salaam waxaa loo soo diray nin aad u adag oo ilaahay uu ku tilmaamay innahu tagaa wuu qooqay fircoon fa'tiyaahu faquulaa lahu qawlan layina adigii haaruun u taga ayaa lagu yidhi nebi muuse calayhi salaam oo hadal jilicsanna ku dhaha lacallahu yatadakkaru aw yakhshaa inuu waantoomo oo waana wax ku qaato ama uu alla ka cabsadaa la arkaa sidaas darteed waa ninkii ku hadaaqay oo ku hadlay faqaala ana rabbukum alaclaa rabbigii ugu sareeyey aniga waay ninkii dhahay maa calimtu lakum min ilaahin hayrii rabbi ani iiga sareeyo oo ani maaragtaay aan ahayn ma haysatiin oo ma jira ninkii dhaha ayuu ahaa nin aad iyo aad u kibray oo caafimaadka iyo nicamta iyo barwaaqada oga dartay ayuu ahaa nebiyullaahi muuse ayaa loo soo diray markaasuu isku dayay inuu nebi muuse dilo markaasaa ilaahay wuxuu yidhi muusow fa asri bicibaadii leyla addoommada adiga ku raacsan habeennima dheelmi oo dalka ka saar nebiyullaahi muuse markuu ciddii dagaalka maaragtaay kula jirtay oo muslimiinta ayadoo raacsanayd markuu atbaacdiisii waday badda ay ku tageen ayaa gadaal markii ay asxaabu muuse fiiriyeen waxay arkeen qoladii uu watay fircawn lacnatullaahi calayhi wa abcad allaahu raxmatahu oo soo socda iyo baddi markaase waxay dhaheen haadaa mowtun aswad
wa haadaa mawtun axmar geeri gaduudan iyo geeri cas labadoodaan u dhaxaynaa. markaasay hadloona waxay yidhiin qaala asxaabu muusaa innaa lamudrakuun, alla waana la gaaray, alla waana la haleelay. nabiyullaahi muusaa oo iimaan ku jiraya wuxuu yidhi kallaa inna macii rabbii sayahdiin, ilaahaa nala jiro asagaana na hanuuninay. markaasaa nebi muuse calayhi salaam ilaahay la hadlay wuxuu yidhi yaa muusaa idrib bicasaaka albaxr, ushaa wadata badda ku dhufo. badduu ku dhuftay 12 waddood ayaa badda ka soo baxday. 12kaa waddo ayuu nebi muuse 12 qabiil ayuu waday oo qoladiisa ay ka koobnaayeen way mareen. markaasaa nebi muuse ilaahay wuxuu kula hadlay yaa muusaa utruki ilbaxra rahwa, badda sideeda ayadoo ah ka tag. maxaa yeele nebi muuse nin jilcan ayuu ahaa oo waxaa laga cabsaday inuu dhaho ilaahu isku keen badda. haddii biyihii ay isku imaadaan oo baddii ay sidii hore ay noqoto oo biyihii isdhex galaanna qolada uu fircoon wato lacnatullaahi calayhi ma soo gelayaan biyo oo waxay og yihiin inaana dabaal baddan looga bixi karin. marka nebi muuse waxaa la yidhi watruki ilbaxra rahwa, sideeda oga tag. innahum jundun muqraquun ayuu ilaahay qur-aanka ku leeyay, qolaan la halaagi rabaa ee faraha ka qaad. nebi muuse qoladiisa ninkii ugu dambeeyey markuu badda ka baxay, qoladii fircoon lacnatullaahi calayhi uu watay ninkii ugu dambeeyey inuu badda soo galay oo baddu ay ku dhex jiraan, ayaa ilaahay baddu inay isku imaato uu amray oo inay isku timaaday. fircoon markaasuu yidhi maanta nebi muuse iyo qolada uu watay rabbigoodaan rumeeyey wa ana min almuslimiin. ilaahay wuxuu yidhi al'aana fircoonoo ma haddaan leedahay waan rumeeyey waqad casayta qabl, hore markaa ilaahay u caasiday. ilaahay wuxuu qur-aanka ku yidhi falyawma nunajiika bibadanik, maanta jirkaagaan badbaadinaynaa litakuuna liman khalfaka aaya, sida dadka kaa dambeeya ay aayad ugu noqoto, aayad cibro siday ugu noqoto kugu cibro qaataan. maalinkaa marka nebi muuse calayhi salaam yahuud way raacsaneed oo waxay samayn jireen yahuud kaanuu yucadimuuna yowma cashuuraa, maalinka way weynayn jireen, wayasuumuunahu wayna soomi jireen, wayattakhiduunahu ciidan lahum, ciidna way ka dhigan jireen, wayalbasuuna fiihi nisaa'ahum xuliyihim wallibaasa alxasana aljamiil, xaasaskooguna waxay u soo xiri jireen dharkan ugu qurxan. sirta ku jirtaana waxay tahay waxay weynaynayeen maalinkaa la badbaadiyey nebiyullaahi muusa. cabdullaahi ibnu cabbaas xadiid uu warinayo wuxuu yidhi nebigaa madiina soo galay fara'a alyahuudu tasuum, yahuudoo soomaysa ayuu arkay yowma cashuurada waay. markaasaa nebigu wuxuu yidhi maa haada, warkan muxuu yahay? qaaluu waxay dhaheen haadaa yowmun saalix, haadaa yowmun cadiim, waa maalin weyn, waa maalin wanaagsan. naja allaahu fiihi banii israa'iila min fircawn min caduwihim, waa maalin uu reer bani israa'iil ilaahay ka badbaadiyey cadowgoodii fircoon. fasaamahu muusa, nebiyullaahi muuse waa soomay, annagana waa soomayna camal. bukhaariya xadiidka warinaya. nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam naxnu axaqu bimuusaa, naxnu axaqu wa awlaa minkum bimuusa, annagaa idinkaga xaqnimo badan nebi muuse oo idinkaga dhow. shareecadiisii iyo diintiisii aan haysanaa oo islaamaan nahay, asagana islaam buu ahaa. maalinka la soomayo waa maalinka cashuuro oo maaragtay sabtida ah, maalinka ka horeeyana waa lagu darayaa oo jimcaha ama maalinka ka dambeeya oo axadda ah. sidaas ayaa fadli badan si yahuud loo khilaafo. waxaana la isugu dambi dhaafaa sanad ayaa la isugu dambi dhaafaa siduu nabiga sheegay. wuxuu yidhi nabiga fii saxiixi muslim xadiid ku jira, wuxuu yidhi nabiga ana rajulan sa'ala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam can siyaami yowmi cashuuraa, maalinka cashuura soonkeeda nabiga la su'aalay. nabiga wuxuu yidhi axtasibu cala allaahi an yukafira asanata alatii qabla, sanadka soo socdo in sanadka la soo dhaafay oo ka horeeyey bishan inuu ilaahay noogu dambi dhaafo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa. sidaas darteed walaalayaal, nabiga calayhi salaatu wassalaam aad iyo aad ayuu ugu dadaalayay bishan kana, maxaa yeelay nebiga aad iyo aad ayuu ula jeclaa ummadda inay wanaagga iyo khayrka ay ka shaqeeyaan. annagana sidaas ayaana looga baahan yahay inaan khayrka ka shaqayno oo wanaagga dadka aan maaragtay u jiidno ayaa loo baahan yahay. allaahumma aamina fii awdaanina, allaahumma aaminna fii duurina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولا تشمت بنا حاسدا. اللهم اهد ضالنا ورده إلى الحق ردا جميلا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وصلاح أعمالنا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح ذرياتنا، واحفظنا بحفظك وبرعايتك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا في ساعة الإجابة، وصلى الله عليه وسلم.